bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawada ku soo dhowo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka xilligan aad ku daawan doonto waxa ka mid noqon doona dawladaha Masar iyo Imaaraadka Carabta iyo saddex dal oo qaaradda Yurub ku yaala oo ku dhawaaqay isbahaysi xooggan oo ka dhana dawladda Turkiga xukuumadda Puntland oo ka badbaaday duufaano halis ah oo dhibaato u geysan lahayd deegaanada Puntland xog iyo macluumaad ku saabsan ra'iisul wasaare Khayre inuu qayb ka yahay xisbiga cusub ee nabad iyo nolol أمير سعوديان أو دسي قلو حكومة أو حكومة كاتورة محمد بن سلمان خلافكي ودحية مدحدا بنتلان أو حلقة قاري يسعيدني أو ويرر كوقادة رئيس الوزراء حسن علي خيره هندية أو شاعسة إني سوصار تداول له استعمالها كهورتجد عذرك كورونا فيروس iyo wararkii ugu dambeeyay guud ahaan dagaalada Liibiya ka soconaya ayaad ku daawan doontaan warkeena xilligan waa saddexda bisha lixaad sanadka 2020 intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon u diyaar garow inaad daawato macluumaadyadan oo intaasi ka sii faahfaahsan haddii ay tahay markii kugu horeysay ka mid noqon saaxiibada halkani ku xiran ee hela wararka aan halkan ku soo baahino ku soo biir ka dhiiba aragtidaada like-tana ha naga hilmaamin mahadsanid mar kale waxaan ku hormari doonaa intaan macluumaadyadaasi aan eegin safarkii madaxweyne Erdogan uu ku yimid 2011 Soomaaliya iyo sida weli looga hadalhayo caalamka dawladda Greega oo dagaal xooggan oo dhanka badda ah uu kala dhaxeeyo dawladda Turkiga isla markaana marar badan eedeymo kala duwan u jeedisa dawladda Turkiga ayaa soo hadal qaaday dhaqdhaqaaqa Turkiga uu ka sameeyo qaar ka mid ah dalalka qaaradda Afrika iyo Aasiya madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa dawladda Greega waxay ku eedeysay in ciidamadiisa dhanka badda ay sameeyaan ku xadgudubyo ciidamadiisa badda ay sameeyaan meelaha ka baxsan biyaha dalkaasi Turkiga xaqiiqada iyo macluumaad ay ku soo baahiyeen wargeyska Greek Times ee ka soo baxay gudaha dalkaasi Greega ayaa waxay ku sheegeen in dawladda Turkiga ay dhaqdhaqaaq ay ka sameynayso biyaha u dhaxeeya Greega iyo Turkiga isla markaana Turkiga uu doonayo inuu awood ku qabsado biyo badan oo dhanka Mediterranean-ka oo labada dawladood u dhaxeeya dawladda Greega ayaa waxay soo bandhigtay dawladda Turkiga dadaal ay ka sameysay wadamo dhowr ah oo ay ka mid tahay qabsashadii ay ku tilmaameen inay qabsadeen dalka Qobrus oo Turkiga qaybta uu ka maamulo iyo sidoo kale weerar ay sheegeen inay ku qaadeen biyaha u dhaxeeya dhanka Greega iyo Turkiga waxa kale oo ay soo hadal qaadeen dhaqdhaqaaqii dawladda Turkiga 2016 ee ka sameysay gudaha dalka Syria oo ilaa iminka ciidamadooda ay joogaan sidoo kale heshiiskii isfahamka ahaa ee u dhaxeeya Turkiga iyo Liibiya ayuu soo hadal qaaday Greegu oo ku tilmaamay inuu yahay mid lagu taageerayo waxa uu ku yeeray kooxo jihaadiyiin oo ka dagaalama gudaha dalka Liibiya waxa kale oo la soo hadal qaaday taageerada Turkiga mar walba oo la garab taagan yahay shacabka Falastiiniyiinta sidoo kale 2011 booqashadii madaxweyne Erdogan uu ku yimid gudaha dalka Soomaaliya ayaa warbaahinta Greega ay soo hadal qaaday waxaana ra'iisul wasaare xilligaas ahaa Rajab Tayyip Erdogan oo iminka madaxweynaha dalka Turkiga kaas oo safarkaasi uu ku yimid gudaha dalka Soomaaliya wax badan ka bedelay sidii caalamka u arkaya Soomaaliya wuxuu ahaa mas'uulkii ugu horeeyay oo muddo sanadaha kadib booqasho ku yimaada magaalada Muqdisho waxa kale oo ahaa mas'uulkii ugu horeeyay ee ka tirsan gaashaanbuurta NATO oo yimaada gudaha dalka Soomaaliya sidoo kalena dhaqdhaqaaqi ka sameeya gudaha dalka Liibiya dawladda Greega ayaa waxay sheegaysaa in xilligaasi isbedel weyn Turkiga uu ka sameeyo gudaha dalka Soomaaliya waana mid ilaa iminka ay hadal hayaan guud ahaan caalamka Turkiga ayaa Soomaaliya wax badan ka bedelay marka la eego sida caalamka uu arkayay Soomaaliya iyo maalgashiga caalamka uu ku sameeyo dalka Soomaaliya iyadoo iminka taasi ay keentay in caalamka idil uu soo hanqal taago Soomaaliya markana aan eegno isbahaysiga cusub ee ka dhanka ah dawladda Turkiga dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa waxay ku dhawaaqeen xulafo ka dhana dawladda Turkiga oo ay ku jiraan Greega, Qobrus, Imaaraadka, Faransiiska iyo dawlado kale si looga hortago dhaqdhaqaaqa Turkiga ee Liibiya iyo biyaha Mediterranean-ka ku dhawaaqistani waxay timid kadib markii shir muuqaal oo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkani ay yeesheen 11kii bishii la soo dhaafay ee May sida xogta lagu ogaaday war ay soo saareen ayaa xulafada waxay ku sheegeen inay diiradda ay saari doonaan ka hortagida dhaqdhaqaaqyada Turkiga ee Qobrus halkaas oo Turkiga ay ku eedeeyeen inuu si sharci darro ah dhulkaasi wax ugala baxayo xulafada ayaa sidoo kale waxay cambaarayeen xadgudubka ay sheegeen in Turkiga uu ka geystay hawada Greega iyo biyahaba midowga Yurub ayaa 16kii bishii May cambaariyay howlgalla kheyraad baaris ah oo Turkiga uu ka wado Qobrus tan iyo bishii Abriil ee sanadkan
waxaa xulafada sidoo kale lagu cambaareeyay ficilada Turkiga ee Liibiya iyo heshiis isfaham oo ay laba dowladood ay ka gaareen xuduudda Mediterranean-ka iyo iskaashiga militariga iyo amniga. Heshiiskaasi waxaa dowladuhu ay kala saxiixdeen bishii November 2019. Bishii May 14-keedii shirkadaha baarista ee Turkiga ayaa codsi u gudbiyay dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya, taasi oo ay kaga dalbanayaan ogolaanshiyaha shidaal baaris uga sameynayaan dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa 17kii May sidoo kale ra'iisul wasaare Faysal Sarraj kala hadlay tallaabooyin laga fulinayo isfahamkii la gaaray. Xulafada lidigu ku ah Turkiga ayaa waxay cambaarayeen dagaalka ka socda Liibiya, waxaana ay Turkiga ugu baaqeen inuu joojiyo dagaalamayaal shisheeye oo ay sheegeen inuu ka waday Suuriya isla markaana Liibiya geeyay. Dhaqdhaqaaqa militari ee Turkiga ee Liibiya ayaa bedelay jihadii dagaalkii u dhaxaysay xukuumadda Tripoli iyo dagaal ooga General Khalifa Haftar, iyada oo dowlad kasta danteeda ay eeganaysa ayana isbahaysigaani cusub ay sameeyeen Masar iyo Imaaraadka Carabta. wararka arrimaha Soomaaliya haddii aan u soo laabanana, iyada oo la soo gabagabeeyay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa kadib dadaallo muddo badan socday oo lagu guuleystay oo garwadeyn ay ka ahaayeen isimada dhaqanka ee Puntland, ayaa xukuumadda madaxweyne Dani waxay ka badbaaday qorshe lagu kala dari lahaa. qorshahaas oo ay wadeen muddooyinkii ugu dambeeyay xildhibaano miisaan ku leh baarlamaanka Puntland ayaa wuxuu daaranaa kala darista xukuumadda Puntland si xal looga helo khilaafka u dhaxeeya Siciid Dani iyo sidoo kale Karaash. xildhibaanada qorshahani wada ayaa waxay istusiyeen in kala darista xukuumaddu ay tahay xalka kaliya ee baarlamaanka uu haysto, maadaama ay horey ugu fashalmeen isku dayo badan oo ay sameeyeen isimada dhaqanka, siyaasiyiinta, xildhibaano iyo guddoonka baarlamaanka. soo dhisidda xukuumadda cusub oo u baahan waqti dheerna waxaa madaxweynaha fuuli lahaa cadaadisyo badan oo hor leh, kuwaas oo sii xoojin lahaa xiisadda. markana aan eegno xisbi siyaasadeed nabad in nolol loogu magacdaray ayaa si rasmi ah looga diiwaan geliyay xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kadib markii uu gudbiyey warqadda codsiga diiwaangelinta sida ilawareedyo lagu kalsoonaan kara ay xaqiijiyeen. xisbigani waxaa guddoomiye kumeel gaara looga dhigay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar sida aan xogta ku helnay. ilawareedyo lagu kalsoonaan kara ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uusan qayb ka ahayn xisbiga isla markaana xitaa aan lagu wargelin diiwaangelintiisa. Mahdi Guuleed ayaa kulankii tubta siyaasadda ee shalay ka dhacay fiiska Khayra kaga dhawaaqay diiwaangelinta xisbiga, waxaana ay ahayd mar uu ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya markaas inuu ka warhelay. markii Mahdi uu arrintaasi shaaca ka qaaday kulanka tubta siyaasadda, waxaa lama filaan ku noqotay ra'iisul wasaaraha iyo wasiiro badanba waxay ahayd in arrintan oo hore aan loo sii ogeyn. sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay wasiiro kulankaasi ka qayb galay. xogta aan helayna ayaa waxay sheegaysaa in madaxweyne Farmaajo uu amray Mahdi Guuleed diiwaangelinta xisbiga iyada oo Khayra aan lagala tashan sida macluumaadka lagu helayo, mana jira faahfaahinno kale oo arrintaani laga helayo. dhinaca kalena markaan haddii aan eegno xiisad dagaal ayaa ka taagan deegaanka Tukaraq. Somaliland iyo Puntland hub ayay isu diyaarsanayaan. wararka ka imaanaya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in saaka xiisad laga dareemayo deegaankaasi. xiisada dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa timid kadib markii Somaliland dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wada maalmihii ugu dambeeyay deegaanka Tukaraq. gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa Somaliland ay dhoobtay deegaankaasi, waxaana ciidamadu la sheegay in ay isku ballaariyeen qaybo ka mid ah deegaanada ku Tukaraq iyo nawaaxigeeda. ciidanka Puntland oo iyagana deegaanka Tukaraq meel aan ka fogeyn ku sugnaa ayaa lagu waramayaa in marar kala duwan ay halkaasi ay dhaqdhaqaaqyo ay ka sameeyeen. xaaladda deegaanka ayaa kacsan, waxaana maalmihii ugu dambeeyay xiisadu ay gaadhay meel halis ah. hase yeeshee ma jirin wax dagaal ah oo ka dhacay deegaanka Tukaraq marka laga yimaado dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda deegaankaas. shacabka deegaanka ayaa cabsi xoogan ka muujinaya in dushooda lagu dagaalamo, waxaana qaybo ka mid ah lagu waramayaa inay barakac ay sameeyeen. weli ma jirto cid ka mid ah saraakiisha labada dhinac oo ka hadlay xiisada Tukaraq iyo waxyaabaha ka dambeeya. hase yeeshee Somaliland ayaa wada muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya hadalkii ka soo baxay waxaa ka jawaabay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Puntland, waxaana mas'uuliyiinta Puntland ay ka hadleen arrintaas. Siciid Cabdulaahi Dani, hogaamiyaha Puntland, ayaa waxa uu sheegay in uu taageero u muujinayo hadalkii ra'iisul wasaare Khayre oo hoosta uu uga xariiqay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in dalka doorasho la isla wada ogol yahay ay ka dhacdo. ugu dambeyntii wararka caalamka ugu waaweyn haddii aan eegnana, dowladda India ayaa ogolaatay in daawooyinka fayraska ka hortaga ee loo adeegsado daaweynta degdega ah ee lagu daweynayo bukaanada COVID-19 ay yihiin kuwa ka dhaqangala gudaha dalkaasi. Remdesivir waa daawada ugu horeysa oo muujinaysa horumarinta bukaanada COVID-19 ee tijaabooyinka caafimaad ee rasmiga. kiisaska coronavirus ee Afrika ayaa kor u dhaafay 150,000 halka in ka badan 4,000 oo qofna la sheegay in dhimasho ay u diiwaan gelisay hay'adda caafimaadka dunida.
bishii January ee sanadkan WHO waxa ay si fagaara ugu amaantay Shiinaha jawaabteeda, laakiin wixii ka dambeeyay dhacdooyinkaasi waxaa jiray jahwareer sii kordhaya oo ku saabsan helitaanka macluumaadka lagula dagaalamaya viruska. In ka badan 6,027,000 oo kees oo cudurkani coronavirus ayaa dunida oo dhan laga diiwaan geliyay. In ka badan 375,000 oo qof ayaa u dhintay, waxaana lagu waramayaa in 105,000 oo kamid ah ay ku dhinteen gudaha dalka Mareykanka, waxaana cudurkaasi ka soo kabatay 2 milyan in ka badan. wararka ugu dambeeyana nin uu ololeeya arrimaha Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday warbixin ku saabsan golo ay sameysanayaan mucaaradka Sacuudiga iyo dibajoogta siyaasadeed oo ay ku jiraan 3 xubnood oo ka tirsan qoyska boqortooyada si awoodda looga xayoobiyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman oo aad u gelgelay caalamka. mas-uuliyiin ka tirsan boqortooyada Sacuudiga ayaa waxaa kaloo intaasi ku dareen in baarlamaanada dalalka muslimka ah, dalalka gacanka Beershiya, xubnaha Koongareeska Mareykanka iyo baarlamaanka Yurub arrintaani la gaarsiiyay. waxaa kaloo intaasi lagu raaciyay in golaha uu taageero in Ahmed bin Abdulaziz Al Sacuud uu awoodda u la wareego isla markaana uu noqdo dhaxal sugaha isaga oo hiigsanaya hadaf ah in Sacuudigu